السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu waa ustaad cabdulbaasid xasan nuur oo ku magac dheer eekis kaas oo aad mar kasta kala socotaan youtube janalka aabbaha xisaabta iyo weliba facebook pageka aabbaha xisaabta, kuwaas oo aad ka barataan xisaab weliba si online ah. cashirkan waxa uu ka tirsan yahay kooraskeenii la magac baxay barashada maadada xisaabta oo aynu usoo gaabinay bamax. marka nagu soo biir oo subscribe saarto channel, sidoo kale facebook pagekeena soo booqo oo nagu soo biir oo like saar. marka kusoo dhawaada cashirkeena aadka iyo aadka u xiisaha badnaay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتها ku saaxiibnay social media meel kasta joogtaan si kasta oo mukhlis ah kusoo dhawaada cashirkeena aadka iyo aadka u xiisaha badnaay ee ku saabsanay koorskeeni la magac baxay barashada maadada xisaabta oo aynu soo gaabin markasta bamax. insha Allah cashirkan waa cashirkii 22 waxaan qaadan doonaa loss ama khasaaro. cashirkii kan kore waxaa kusoo qaadat faa'iido, kan waxaa ku qaadan doonaa insha Allah loss. bal marka hore waxay aan ku dhaho loss iyo profit, faa'iido iyo khasaaro. ninkan goorma la dhihi karaa wuu faa'iiday ama goorma la dhihi karaa wuu khasaaray? intaasaa muhiim soo maha. ninkan uu faa'iido waxaa la dhihi karaa markii qiimaha uu kasoo bixiyey shaygan iyo qiimaha uu ku gaday ay weyn tahay qiimaha uu ku gaday ay weyn tahay. tusaale ahaan $2 ayuu kasoo baxay shaygan, wuxuu sii gaday $4. shayga uu meequu ku gaday $4, meequu kasoo bixi $2? yaa badan, inta uu ka bixiyey maa badan mise inta uu gaday aa badan? shaygan $2 kasoo bixi $4 gaday, wuxuu gaday haddii badan tahay ninkan wuu faa'iiday, faa'iido ayuu haystaa. haddii kaleetood ay badan tahay kabar meesha kale oo wuxuu kusoo gatay awood. tusaale ahaan ninkan wuxuu kusoo bixiyey $8 kusoo bixiyey, $8 markuu kusoo bixiyey $6 ayuu sii gaday. yaa badan, lacagtuu kasoo bixiyey maa badan mise lacagtuu gadaa badan? waxaa badan lacagtii uu kasoo bixiyaa badan. taasna waxaa loo yaqaanaa khasaaro. hal mar iyo kusoo celi iyadoo si kooban ah. ninkan koormeel dhihi karaa wuu faa'iiday, waxaa ninkan dhihi karaa wuu faa'iiday qiimihii uu kasoo bixiyey iyo qiimaha uu gaday haddii ay weyn tahay qiimaha uu gaday, ninkaas wuu faa'iiday. ha weynaad ama ha badnaan isku mid ah. haddii ninkan goormoo khasaara aa dhihi karna haddii ninkani qiimaha uu kasoo bixiyey qiimaha uu gaday ay badan tahay ama ay weyn tahay qiimihii uu kasoo bixiyey, asigana waa khasaar. marka maanta loo saa qaadayna waxaad noo qortaa waa topic waa taqaano loss ama khasaaro. noo qorta example waxaa ka dhigtaa gabar la dhahayo Faadumo ayaa waxa ay soo gadatay taleefankii waxa ayna kasoo bixisay $5 ay kasoo bixisay. suuqay tagtay, carway tagtay, taleefaneed ee rabtay inay soo gadato, taleefanka waxaa kasoo bixisay $5 ay kasoo bixisay. waa qaal badan ah kaasna mise raqiis la iskale kaas $5 ay kasoo bixisay. markii $5 ay soo bixisay way keensatay xaafadda kasta, way jaajinaysay, gaming ku dheeshay, way ku dhedheeshay, adeeg kalaash internet isticmaashay, way ku dhedheeshay, way ku baashaashay. markii ku baashaashay taleefankii ma nacdaba niyo taleefanka ma oro taleefan kala soo baxay iPhone ara iska soo dirtay ka bacdi markii taleefan raba ay tiri waxaa la taleefan maanta taleefanka wada tag suuqa gi soo xaraash lacagta ku dhameystirayna camal. gabarti Faadumo la suuqa tagtay way xaraashi war taleefanka waa xaraashi. markaas nin ay aragtay oo taleefanka camal u baahan way heshii way gorgortamay waxay ku heshii $3 inay ka siiso. gabadha riisko dhaca $3 loo tuuray, EVC ana loo tuuray, dhac way qaadato taleefanka ka tagtay. naagtaasi meeqa $1 ayay khasaartaa laga yaabaa. hal mar si kooban example-ka ugu soo celiyo. gabar Faadumo la haayo
ayaa waxay soo iibsatay mobile waxayna kasoo bixisay $5. kadib markii ay isticmaashay waxay gaday $3. hadda waa maxay khasaarada ama tirada khasaarada soo marka khasaarada waxaa lagu helaa lacagtii aad kasoo bixisay laga jaray lacagtii aad gaday. gabartaa meeqa kasoo bixisay $5 ay kasoo bixisay. meeqa sii gaday $3 gabaa waa kala jaraysaa qura. khasaaro waxaa lagu helaa qiimaha kasoo bixisay laga jaray qiima aad gaday. gabaa ay kala jar gabartaas Faaduma Laahi waxay khasaartay $2 dhan ay khasaartay. xanuun waa $2 niyo kala jar leesmay bisay qiima aan kusoo gatay laga jaray qiimihii aad gaday. tii hore cagsi ku tahay profitka inaa fahantiin oo malay cashirka kan hadda example samaysan just waxaa ka dhigtaa exercise exercise kan aan fududeynaa. wiil la dhahayo Akram Xasan Nuur ayaa waxa uu soo gatay buug waxa uuna kasoo bixiyay xaasidnimo oo adkeynatan. waxa uu kasoo bixiyay $1 ayuu kasoo bixiyay buug abu raqiis oo soo gatay Akramkaas $1 marka uu kasoo bixiyay buugii marka uu isticmaalay kala bar camal uu ka isticmaalay ayuu wuxuu yiri niyo ma waro buugaan waa iska gada markaasoo ii keenay aniga markaas waa iska baahnaa buugaas. tibaa markuu ii keenay waxa ku heshiin inaan ka siiyo $1 oo tuu saaxib ninkan $1 EFC dhac buu dhaanay kan buugaama kadib hay'adu dhawa ku heshiinay $1 kiisa ay u tuuray. waxa laga rabaa Akram inta uu khasaaray inaan soo shan laga rabaa si kooban. Akram ayaa waxa uu soo gatay Akram Xasan Nuur ayaa waxa uu soo gatay buug wuxuuna kasoo bixiyay $1 kabacdi Cabdibaas oo keenay wuxuu ka sii siiyay $1. waa maxay khasaaradiisa tan waxay gelaysaa ashirkii la dhihi jiray waaya numberkiisa waxa uu salaakin la dhihi jiray toobkiisa ku jiya subtraction of decimals. waa ku tashaa jawaabta waxay noqonaysaa jawaabta oo fashion qorta jawaabta waxay noqonaysaa $0.5 oo khasar awaan $1 ma khasar karo xanuun waa wallahi bilaa cashirkeena ka soo fiigay ku soo biiro channelkeena subscribe share cashir channelkeena Facebook page-keena soo booqda like saara marka xisaabtaadii u fududaa markasta waxaa isku dayaa insha Allah wax kasta aqoonaya bulshada Soomaaliyeed inteeda afka Soomaaliya ku hadasha u soo gudbiyo. kii jooga Jiljiga kii jooga Gaarisa kii Xamar jooga kii Hargeysa kii Jabuuti inta u dhaxays inta joogto huma shanta Soomaaliya ku faanaa ku dheh kasta wadaniga iska hay yaa loo bixin wadanimadana waa fiican tahay Soomaalidan ay jeclaato wallahi bil aada in jeclaa Soomaaliya. وأستاذ عبد الباسط حسن وإذن الله إن شاء الله إله سبحانه وتعالى وحاول يسلينا جنة الفردوس. إله سبحانه وتعالى وحاول يسلينا جنة يسينه ونو أرساقه سيدو كل والدين تلعون حارستو سيدو كل معلمين تلعون حارستو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.